وحبا لما تدي قرودي أنت يقوى كأسيكي جيجي أدك مركوكو منا نتجيت كيوغا كوغو حيدو وحا أي قرشي قبلي ما دتاي وقرانيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونيسان ما باخيارتها ودنا قال حداي meel ka soo daafa dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye oo xariga ka jaray dhismo ballaaran oo loo dhisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaaray wasaaraddaasi ugu horreynba waxa uu xariga ka jaray dhismaha laga hirgeliyay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga intaasi kadib waxa uu soo kormeeray dhismayaasha iyo waliba xafiisyada kala duwan ee wasaaradda deegaanku ay ka kooban tahay waxaanu halkaasi ka taagay geedkii ugu horeeyay Somaliland المال قديسي تعب فربنا كوبحي وحفيزكي لبعض أي مكان وراد يسهدان الديجان كان هاي مدة سدح مدة مكان تطور بالواضح وحفيزكي لبعض دولة Somaliland نوفر قديسي. أبان وزيركي يوم بلينا يا يوم هاي ستاف كشفيا وزارة ده فرحبوا بنوت المنطقة هنا لا فرصة كفروا دارتن أما حفيزك كان وزارة قيمة وين تلك يدك وأولى إن شاء الله تعالى وحنا فيلا يا رجينا يانا إن شاء الله أنتوا ركسي بلتو أو نايسناتو وبل تلك يدك وافع علينا ودن كمال كانوا كبحها هيابو أبو كبحها كايدوين بدن بوليه هاي ولا جويا إما كانوا دبعتها هيستا كيد كاسليد بدن بوليه فائدة تقولة مرة بدن نوع كبحان وسيدي لوسكا كيد كاسام سنة كدوني نمترين ولا ليالو دكنا سنة ديساي أقوله ديساي أولا ديساي دكا ديسا ديسا دولكا ديسا ولا ليالو دكنا سنة ديساي أقوله ديساي أولا ديسا دولكا ديسا intaasi kadib waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay furitaanka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland laabanayna xafladda maanta ayuu ku furayno wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga dhismaha cusub ee loo sameeyay
xafladda waxaa inagala soo qayb galay madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marti sharaf kala duwan xubno wasiirra iyo xubno ka socda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah hoggaan dhaqameedka iyo bulshada aqoon-yahanka ah dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh munaasabadda maanta aynu furanayno wasaaradda deegaanka ma aha in daar kaliya aynu xadhiga ka jarayno ama aynu samaynayno ahmiyadda iyo ujeeddada ay xambaarsan tahay waxa weeye in aynu helay halkii looga duuli lahaa wax ka qabashada deegaanka sii baaba'aya iyo xaalufka dhulkeennii lagu hayo dhirtii qoyanayd oo dhuxul loo isticmaalay taasoo aan filayo inay halkani noqon doonto goobtay ka soo bixi laayeen forestry-gii dabar goyn lahaa kuwa dhirta qoyan gubaya ee dhuxusha u isticmaalaya ganacsi dartii halkani waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto halka ay ka duuli doonaan kooxaha deegaan yaqaanada iyo deegaan ilaaliyaashu dhammaantood ee lagu daweyn doono dhibaatada oodashada dhirta iyo calafkii xoolaha ee laga dhameeyey guud ahaan deegaanka munaasabadan oo si taxanaa inoogu socon doonta heestii calanka jamhuuriyadda Soomaaliland jeclaan lahaa wasiirka diinta Sheekh Khaliil أحباب في الله مدير مدحوينه قد أمان مرتشرفت وزيرك وزارة ديانك جارهان حفلتي سمانت أن شغنو أو أينو كفرينو دارتي قيمها بدميد هل كان أينو مان تمدحوينه وحركة شري ولا الله يا إلهي سبحانه وتعالى وحو آيات كانوا جورا ميا ينوق شيكين يا الدنيا قيمها أيلا هذا هاي نتهاي بيجعلك كيمي ودور هو داعي ودور يديان في عنك صاري نوش هو أنت بالله سبحانه وتعالى واللي بود كتر مرة آيات كلام عليه مما تأكل منه مما يأكل منه الناس والأنعام وحدتك يحولوها يقوتان أو نعمة يو دوق أي الله سبحانه وتعالى صاري إلهي سبحانه وتعالى آيات كلام كتير حلي رب سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
dhulka ha fasaadinina kadib markii aan siday ku qurxiyay buu Alle subhanahu wa ta'ala marka deegaanku waa arin kama kacada oo diinteena sharafta badan ee xaniifka ay nafartay inay dhowrno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo ku mahadsan waxa Ilaahay waafajiyay inuu si gaara wasaarad u gaara oo deegaanka dhowrto inuu ilaalisaa maadaama ku xiranahay nakii xoolaheeduba inuu magacaabo qof aqoon u leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala tan koognahay oo shukri xad Ismaaciil ana wuxuu uga dhigay hogaamiye uga dhigay iyadoo mid ku caan baxday ilaalinta deegaanka oo ku caan baxday waxbarashada inta ku caan baxday maanta sida madaxweynuhu dhawaaqiisu ahaa waxa Ilaahay waafajiyay isagana inuu u fududeeyo wasaaradda maaliyaduna ay qayb weyn ka qaadatay runtii sidii ay ugu isbeergalayd ama u diyaar gareyn lahayd in ay maxaan ku dhahday u samayso daarta qurux badan ee maanta ay furday Ilaahay walaalayaal subhanahu wa ta'ala makulay wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qariibun min al-muhsinin Ilaahay wuxuu leeyahay xariista Ilaahay waxay u dhowdahay dadka samafalayaasha maxay samafalayaan marka wuxuu ka soo sheekay Ilaahay dadka deegaanka dhowr u samafalaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waayo deegaanka waxa ku nool dhirta waxa ku nool xayawaan iyo bahaayim aynu arkayno waa ogtihiin sheekadii nabi Suleymaan markuu roob doonta u soo baxay ee roob doon dadka u tujinayay wuxuu arkay quraanjo dhabarka u jiifta oo Ilaahay baraysa markaasuu arji'u fa innakum qad suqitum bid'awati ghayrikum waska noqday buuli waxa la idinku waraabiyay dacwo Ilaahay ka aqbalay dad xayawaan kale oo aan garanay hadeega waa quraanjo ay baraysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxay quraanjadu ahayd rabbana rabbiga yow لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء من البشر أو لا تعذبنا بما فعله غيرنا أو كما قال وحق الكيس سميين أو دتك سميين إله اللي فسادين حيوان ما له بوين إله ببريان أم بوين حباريان أم بوين دعينيان هذين دجان كول على إنه وينو دعينيان هذين دجان كول دور وين حباريان مركو دجان كو أم بيان أنت دجان كو وحوين كما قعدة دينتنا حرارك دكتي قواعد الفقهية اللي هذا حكم لا ضرر ولا ضرار dibna isu geysanin waxaanu hadhibin buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu nahay ummad 1400 sanadood Ilaahay faray inay deegaanka dhowrtaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri markuu ka hadlayay Makka iyo Madiina wuxuu yiri laa yu'dadu shajaru yaan geedkiisa la goynin walaa yunafar saydu duur joogtiisana yaan la eryanin amba yaan la didin baabuli yaan la leeynin yaan la didin marka dhulkaas waa dhul aad iyo aad u baahan in dhir loo beero waa dhul saxara marka Ilaahay ka dhigay waajib sharciya inaan dhirta taaban xataa caday kama goosan kartid laakiin waxa qaad u leedahay geedkaad ugu beertay inaad goosato laakiin dhirta Ilaahay beeray ee la yiraahdo dhirta dabiiciga ah dhirta naturalka dabiiciga ah waa mamnuuc in si basiira aad ku gooyso inaad dhuxulaysato inaad gooyso inaguna waan ku qaylaaba intaan gooyno ayaan qaatisanaa ciyaadu billah marka waxaan walaalahay idin sheegaynaa min samamidiin wasaaraddan iyo runtii hawladeennada waxaan u sheegaynaa inay ku jiraan amal Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo faray oo ilaalina oo kala yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynahaba uga wakiil yihiin iyo ummadaba inay ilaaliyaan deegaanka innaguna waa in la dhowrno oo la ilaalino oo ay deegaankan maanta harsanayno quruxda dhirtaas ee dabiiciga ah ee teendha ka maaranay ee sandaqad ka maaranay ee maanta dhirta hoos harsanayno waa in saas loo dhowraa Ilaahay waxaan uga baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu barakeeyo wasaaradda iyo hogaamiyaheedaba inuu barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhismaha cusub inay hawlgalka Ilaahay u fududeeyo innaguna ay isla garab taagno hadduniya iyo maxaa awood waxaan leeyahay isla garab taagno annaguna diyaar baan loonahay wajazaakumullahu khayr wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maaliyadda ee Soomaaliland waa munaasabad qaali ah waxaynu maanta isugu nimid inaynu furo oo madaxweynuhu furay xafiisyadii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga ee farxad weyn bay runtii inoo tahay oo qaali ah tiyo munaasabadan iyo wasaaraddan iyo wasaarado badan oo kaleba aynaan lahayn maanta guri kale ay ku jirtaa ama hay'ad hebel iyo shakhsi hebel baan mucaawano ku weydiisanay aynu gacmaheena ku dhisanay iyo dakhliga dalkeena wasaaradda maaliyadda farxad weyn bay u tahay waxqabadkeedayna ka mid tahay tii wasaaraddu fulinaysa talooyinka madaxweynaha in wasaarad wal oo wasaaradaheena ka mid ah ay hesho dhismo wanaagsan iyo xafiisyo wanaagsan oo ay shaqadooda ku qabsadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suurtageliyey ee xoolaha iyo dhaqaalaha iyo maaliyadda ina siiyey ayaynu u mahadnaqaynaa
الحمد لله رب العالمين إله نوزيادي بين لنا وزيرك وزارة ولا شيء شكري وحنوقع مهدنقيا تذلك أي أوجا شيء سري وزارة نود اسم لهاي تيو هاري هبين هنتي وزارة مالية دول شوكتي تيو هاري هبين كود ذلك سين وزارة عيالته هوي يو دسم أوجارا أنا جنا إلهي ونلقبتي وإلهي ونوفدي إن وزارة بدنا كلو غنا كنا بقى ندسنا إذا أنا مهدقارا هنتي ومهدنقيا وحنو مهدنقيا ومدرسة مالاني عشورها كواتبي بحسا وحنو مهدنقيا شغالها وزارة المالية دي شغالها كل دون وزارتها كل دون السور تجلي إن قالها هذا الكينو هل كمان توجاري وسوجارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيرك واحد برشاد جمهورية الصوماليلاند هو سبسم عبدي هذا كسر دو. الحمد لله وحيلاها مهدية إن المانتا أي نشوفنو إنكم نبضة حفلة قيمها له قروح ضبضا أي نوع لسي دقن كيني إنه أقل صومالي يدوقي يهلك إنه كسر تفيرنا مالو أي نمانتا تشوفنو أدبا نقوم حدنا قينا شكري إن نوع سنتين وحال هو إني وسارد ديجانك شكري وحبذا أي كمل الدلين دونتو ويضدك شرعي ما يدلنا التاريخ بيلي نودن كان مدة لقصو شقيني وحي شكري كسي فودي إني هيئة كشقيني سيكمل هي لها كم مقدوتنك وحبذا سومالنا ميلا بدن كقبتا وحن إلهي كرجينيا إني تي أي كسوق أبتي هيئة تكسي ونعسل أي مانتنا كقبتو مدام أي wasaaradii deegaanka oo aad aynu ugu baahanahay oo runtii aanu ku balan qaadayno shukriyay inaanu ardayda way ugu jirtaa syllabuska wacyigelin badan oo deegaanka ku saabsan aanu ka qayb qaadano inaanu aad iyo aad wuxuu la qabano inaanu ardayda ku wacyigelino inay deegaanka ilaaliyaan anigu waan kula shaqeeyaa runtii waan ku soo sawiraa meesha dhirta meelahan maraya la gubo dhirta qoyan waanu keenaa warbixinta waanu keenaa dadka waan ka wacyigeliyaa haddana waxay u baahan tahay inaynu guddigeed iskugu tagno oo aynu wax ka qabano markuu deegaanku hagaago ayay wax kastoo kaleba inoo hagaagayaan roob helinaynu barwaaqo helinaa ilaahay waxaan ka baryayaa inay hay-addani noqoto mid waddankeena isbeddel fiican ku samaysa wasalaamu calaykum waraxmatullah وزير كحجيك وزارة هولها جود halka wasiirka maaliyadda wuxuu ka sheegtay inuu isagu lacagtii lagu dhisay bixiyay annana waxaan sheeganaynaa inaan dhulka bixinay awal ilaalin bay nagu haysay waardiye nagu haysay wixii hadda ka dambeeya waxa xilkeedii nagala wareegay wasaaradda deegaanka intaa kadib waxaan ku darayaa oo madaxweynaha ka codsanayaa halkan aanu taaganahay dhabarkeena waxa marta wadada ugu weyn Hargeysa oo leedah xilmoog wadada inay baabuurta kala yareyso annana aanu security ku xidhno oo la maro ayaan madaxweynaha ka codsanayaa oo side la maro oo dhinaca u socda si ay wadada madaxtooyadu nafis u hesho taana waan soo jeedinayaa aad iyo aad baan u mahadsantahay wasiiradu aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin hadalka gaagaaban dartiis wasiirka deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare marwuu ku soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحويني مروده كوباد ee wadanka maxkamadda sare gudoomiyihiisa xildhibaanada golayaasha labada golaba soocaadiinta cuqaasha iyo wasiiradaba marti sharafta kale qiimaha leba runtii waxaan anigoo soo koobi karaynin maanta farxadayda ayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda deegaanka ayaana aad iyo aad idinku soo dhaweynaya waxaanan idinku mahad celinayaa sida wanaagsan ee u soo jiibteen inaad noo timaadaan bahda saxaafadda had iyo jeer ayaguna waa qaali waanu mahad celinayaa sida wanaagsan ee noogu yimaadeen mudane madaxweyne dhulkan aad arkayso waxa weeyaan dhul qaali ah waa dhul ballaaran waa sida labada wasiirba iga horeeyayba u sheegeen samsamna runtii ay u tibaaxisay waa wasaarad qiimo leh dhul ahaan waxa iska leh dawladda Soomaaliland wasaaradda maaliyaduna sida wasiirku sheegay runtii uu maalgeliyay dhexdaan uu xidhay
in badan baan anigu wasiirka u tegay aan ishortaagay marar badan buu yidhaha Shukri maantana miyaad socotaa maantana magriid baynu ka hadlaynaa gurigan wuu dhammaaday guri weyn oo isaguna aan waxba ka yarayn ayaa ka socda Gabiley imaka mudane madaxweyne marwooyinka iyo mudanayaashaba waxa weeyaan sagaal kale ayaa dhawaan la dhisaya sagaal xarumood oo kale oo dalka ku baahsan ayaa la dhisaya sagaalkaasi waa dhismooyin fara badan ayay isugu jiraan sagaalkaasi laascaanood waa brand new wuu cusub yahay dhagaxana waanu soo dhigaynaa Hargeysa waa la duminayaa fooq baa laga dhisayaa xafiiskoodan in allaaliya inta kale ilaa Saylac Berbera Sheekh burco Cergaabo la sida markaad u socoto meel walba waxba lagu kordhinayaa ama dib u habayn ayaa lagu sameeynaya marka waxa noo qorshaysan sagaalka inaanu sanadkan dhamaadkiisa intaanu dhamaan aanu iyagana ka soo jeesano waxa halka runtii noogu xiga barnaamijyada faraha badan leh ee aanu qaadanay kamida wasaaradaha mar hadaad dhisto xafiisyadooda waa inaad dadkiina dhisaysaa staafkii dhisaysaa oo qalabaynaysaa taasina way ku jirtaa waa la wada qalabaynaya xafiis kasta oo la dhiso qalabkiisa oo tafatiran baa loo dhigayaa waxa intaa xusud mudan in la siinayo tababaro fara badan shaqaalaha naftarkooda oo kor loo soo qaadayo sida madaxweyne uu noogu ballan qaaday wasiirka maaliyaddu sanadka dambe shaqaalaha iyaga oo ugu badnaan doona forester guards runtii aad iyo aad baan iminka ugu sii mahad celinayaa marka waa wax noo soo socda intaasiba waxa kale oo iyaduna xusud mudan inaanu 8 xarumood oo iminka dhir yani maaragtay aanu ka beeri doono dhir fara badan tanaynu maanta joogno way ka badan tahay dhirta taala 20,000 oo geed maanta way ka badan tahay dhirtu waxay u badan tahay dhirta harka ayay u badan tahay ee loo qaadan karo harka kuwii muruhu way yaalaan laakiin beerahan ugu dari doona hadii ay cidii doonaysaba inaanu u beerno barkada waaweyn iyo biyo soconaya baanu haynaa marka si weyn baanu imika u maalgelinaynaa inaanu dhirtii beero oo dhirta la gurayo maanta maaragtay dhuxusha aynu ku shidanayno inaanu dib u soo kabno 8 xarumood waanaanu sii kordhinaynaa mudane madaxweyne saynu wada ogsoonahay deegaanka aad baynu wada ognay maanta baahida inoo haysa cimilada isbedeshay faraha badan leh runtii isbedeshay awadeed ayaan u loo soo wada jeesanaya waqtigan imika xaadirka madaxweyne waxa weeyaan roobkii sanadka uu inaga raagay sababahana waynu garanaynaa dhirtii ayaa inagu yar horta waliba inaga dhirta inagu yar sida la inoo sheegayo ay maaragtay expertku inoo sheegayaana waxaan filaynaa sanadkan inuu roobku ka hooseyn doono siduu ahaan jiray ilaa imika waxaan ka warhaynaa biyo dhaamis bilaabmay waan meelaha qaarkood biyo dhaamis baa ka bilaabmay marka bal si aynu deegaanka u soo noolayno mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa kulli khudbadaadana way kuugu jiraysaa in dib loo soo celiyo marka ugu horeysa bal horta dhirtii oo dhirta maanta aanu ka cabanayno la jarayo aynu dayno oo la helo alternative energy ama aynu helo energy kale oo aynu ku bedelo tamar kale aynu ku bedelano wasaaraddu way dadaalaysaa minister Xuseen aad buu ila dadaalayaa sida ugu dhaqsaha badanna wax bedela bilaha soo socda insha Allah waa la helaya waayo wax fara badan baan imika rajaynaynaa mudane madaxweyne waxaan anu kaga baxayaa khudbadan inkastoo waqtiguna uu ciriiri yahay waxaanu had iyo jeer alle kuugu mahad celinaynaa xukuumaddaada wasiirada iyo in allaaliya inta shicibka Soomaaliland ba garabka ayna siiyaan maanta maaragtay wasaaraddan oo baahi badan u qabtay in garab la siiyo sida garabka loo siiyo sida marwasamsuna waxaan codsanaynaa meeshii la tagaba in loo soo sawiro oo kamarada la ordaya la yiraahdo halkaas la shiday halka kala xaaba laga maalin dhaweyta meel iyo maraysay la tiri dhulkii dhamaa xagaad ku maqan tahay qoriga la gooyo kala arag ee badan yaala marka waxaan idinka codsanayaa in ay idinkuna ku darsataan wax allaaliyo wixii aad samaynaysaan inaad ka wacyi gelisaan dhinaciina dadka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sida diiran ee noogu timaado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرحد وين بي إيتا هاي باتا إنان حالكن إمادو وان كسو قيب قلو
muxuu ahaayey bilinka ama daarta cusub ee loo sameynayo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxaan aad u ambaliyeynayaa wasiirka shukri bandare oo hawl sidaa ay aad maqlayseen aad iyo aad aqoon ugu leh cilmi fara badan u leh aadna ugu dadaasha inay wax ka qabato environmentka wax tarto haddii aanu nahay dawladda waxaanu ballan qaadaynaa inaanan waxba kala hadhin waxaanu nahay ummad xoolo dhaqato ah waxaanu nahay ummad reer miyi ah waxaanu nahay ummad beeraley ah deegaanku ahmiyadda inoo leeyahay waa wax nolosha dadkeena iyo ummadeennu ay ku fadhiyaan qiimo weyna u leh mar raba aynan ka maarmayn haddaynan ilaashan oo dhowran oo inaga xumaado nolosheennii iyo socodkeennii iyo qoranimadeennii iyo horumarkeennii bay wax weyn yeelaysaa ay dhibaato badan u geysanaysaa insha allahu tacaala waxaan ku rajaynaynaa aanu ku dagaalamaynaa kuna howlgelaynaa inaanu kala shaqayno wasaaradda howlaha ay u baahan tahay oo dhan si loo nabadgeliyo bii'adda si loo nabadgeliyo deegaanka qaran ahaan iyo ummad ahaanna ayna wax alla waxaynu kala hadhnaa jirin insha allahu tacaala waynu ku wada dagaalgeli waynu ku howlgeli maantana sheekhu waxay noogu dhawaaqo roobdoon muxuu ahaay ilaahaynu ka barino inuu roob iyo nimcad dushay naga ina siiyo dalkeen iyo dadkeena bashbash oo qarka dhiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بدل مدحوينه وأبكى حقاق مهد علينا ما أنت إن مدرسة وما لنا تقول واقضي كنا ورجلنا كنا أمريسو سي سنه وأها إنه راعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا كلا مركو رب كوير راجو حلق الله برتة وير راجو وحرسولك صلى الله عليه وسلم يوتشي ذي إن ربضان تكنو سيادرت مدل مدحوينه waxaanu ka amarkaaga fulinayna ummadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa ka wasaaradda ahaan wasaaradda awqaafta in dhammaan shacbiga Soomaaliland gobolada degmooyinka meel kasta joogaan inay maalinta sabtida ee bisha 26 Abriil kuna beegan 16 bisha Jamaad al-Aakhir ee ku jirno inaynu isku soo baxno 8 subaxnimo gobolada iyo degmooyinka dhulka lagu tukan jiray salaada ciida oo aynu ku tukanno salaada Ramaadaanta si Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama sunniisa qaadanayno oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu nahay Ilaahayna barayno waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ballan qaaday isaguna inuu nagu jawaabo oo ducadeena uu aqbali doono insha Allah ta'ala maadaama madaxweynuhuna taas uu isaguna ka codsaday shacbiga inay si qalbi furan oo naxariis leh isu saamaxaan oo ay u toobad keenaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u bandhigaan baahida aynu u qabno naxariistiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala markan baahideena aynu bandhigno waxa xaqiiqo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu aqbali doono ibariya buu yiri duuni astajib lakum ibariya ummadii hay waan ka aqbali doonaaye sida darteed mudan xun kaamada cilayna mar labaad in amarka fulin doono insha Allah ta'ala oo degmooyinka iyo barsaabada gobolada dhamaantood gaarsiin doono warkeena saddex war saxaafadna ku bixin doono hadii la yiraahdo assalaamu calaykum waxaan jeclahay inaan shaqaysiino dad aad iyo aad noola soo shaqeeyay oo deegaankooda ilaashaday oo maanta tuulooyinka ay ka yimaadeen aad yaabayso siday noogala shaqeeyeen ragaasaanu maanta doonaynaa inaanu siino waxa weeyaan ugu horeeya Saleebaan Carab aw Saciid qoton weyne Saleebaan Haji Saleebaan qoton weyn buu ka socdaa عبدي آدم حرسي بلي متان عبدي آدم حرسي بلي متان كل أنا وأحمد إسماعيل قلي طلبها سياسي لما مشوا الحل دار مجران كل كسوة كل نبضوي إيه هلا أطول صلاة شنو قصة وربع شادي الوقت أمبلي هذه هذا الحسن جامع وانين حبي هذين عساعن روتي تضبط حفيز صوتي ما ليسا هبين تبنكو كوجارا أحمد دعالة ورسمة أحمد دعالة ورسمة إلهي دليل ودنا أحمد وكله أكبيه بإذن الله ونسى صحة ونمسك السوا ومسامن ما شاء الله. وأنا واحد نسينا إن قرر يرمي بوكالته. لبس
marwadana labis baa loo keenay marka labiskii baa madaxweyne waa kabihii cagba baa la ayay yiraahdeen baa la yiraahdaa waa kiishadii labadii go marka waxay yiraahdeen mar hadaadna soo sharaftay maanta dharkayagii baad naga xiranaysaa iyo hugayagii marwada qaaliga ee dalka waxaanu iyadana maanta siinaynaa oo ay reer miyiga siiyeen ayadana tusbaxii cinaabiga ahaa iyo hawlihii ilaa subaxiyadii marka waa ku sharafnay haddaan wasaaradda yahay aad iyo aad madaxweynaha goolkiisii waa kaas waxaan leenahay marka madaxweynaha goolkiina waa kaa madaxweynaha wuu fadhiisanayaa maanta waxaan idinku sharafaynaa waa caano waa muqmad waa timir waa subag keeg ma hayno raalli baydu naga ahaan marka intaasaanu maanta idinku sharafaynaa idinka dhaqanka uu nahiyo odaygu urti iyo gaaraad iyo sultaan gafka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo gola iyo ardagarta lagu naqa umad gacaalaho dhaqanka uu nahiyo odaygu urti iyo gaaraad iyo sultaan gafka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo gola iyo ardagarta lagu naqa umad gacaalaho
madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya ayaa galay aqal ballaaran oo laba daryaal ah oo laga dhaxdhisay xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga taasi oo wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay madaxweynaha sharaxaad ka siisay qaabka gurigaasi loo dhisay iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay وإذا كده أنا أصلا قاعد أتكلم. أيوة. فرعدي. محيي فرعدي كر أنا عرب خدني وتوالد سارج وكيد قبيض. أنا وادي سيارة. قوس بيع. كان وقوس كبار فليا. قوس. صدق لها اسكتشوق. كل نوع أنا كان وقوس. اسكتشوق إنه كبار ملاين متر وكبر. ها بيع. وحقولي بعها تبرقوي تكوهي حولين يدك كانوا نصمينا والبانو كدقنا هاوي khiyaarta hawada nagala xidhay waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarkaan uu ka eeganay madaxweynaha Soomaaliland oo xariga ka jaray dhismaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland waa filim qadisti Cabdullaahi Cali Suudi habeyntii isku dubaridkii barnaamijkan Maxamed Aqli Hadi iyo Axmed Saki Daar Xasan oo dhamaantiiba ku dhaafay kulanti dambe oo xiiso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلا كذي قرودي أكي قواك إسيكي جيجي أدك مركو قمنا نفتقيت كي يقركو حيدو وحاي كرشي قبلي ما دتاي وقرنيا أبلا كذي قرودي أكي قواك إسيكي جيجي markuu go'mana naftageedka iyo garkowgu xidho waxa ay gashay gabadhii maadu tahay